tilaabooyinka muhiimka ah ay qaadeen waa u mahadnaqaynaa waxaan leenahay meesha ka sii wada waxaan ku raacsanahay sanadkii soo jeediyey yaan gadaal loo soo laaban reer mudugga waxaa lagu xifaaleeyaa markii xoogaa yara dhex maro waxay yidhahdaan nugu kala wada marka nugu kala wada yaan la dhihin haddii bani aadamka khilaafaad waa dhex yimaadaa laakiin inaad farsamada reer koonfurka inaad barataan isku daya insha allah tacaala waxaan leenahay arrinta meeshan isku yimid ee ku saabsan dhismaha dekedda runtii waa arrin maaragtay aadna waa looga hadlay waana arrin runtii dadka reer galmudug ay maskaxda in badan ay ku hayeen goormay suurtoobi doontaana la islahaa marka waxaan leenahay waqtiga ay suurtoobi lahayd inuu waqtigaa noqdo ayaan rajaynaynaa ilaahayna sidaasaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala dadaalkeedii iyo maaragtay isku dayga wanaagsan oo hadda muuqdana in laga dhabeeyo oo aad loogu dadaalo waa muhiim arrinta kale oo runtii wax ku oolka waxa weeyaan waa arrinka isku tashiga oo la sheegay oo wasiir saabirna uu ka dhawaajiyey ficilkeediina maaragtay uu dhex galay gudoomiye shirwac runtii reer galmudug laba arrimoodba dadka galmudug ku nool waa runtii waa horseed u yihiin awoodda mid dhaqaale ha ahaato mid haya ha ahaato waa horseed maanta marka inay wax qabsadaan waa xaqay u leeyihiin qalalaasahana waxaa la yidhaha iyaga horseed ka ahaa marka qalalaasiya inta meel la dhigta maanta horumar in loo soo jeesto taasaan bogaadinayna insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi